qarax xoog leh ayaa goordhaweed ka dhacaya magaalada muqdisho iyadoona dhawaqani qaraxaasi laga maqlaya inta badan ba caasimada dalka qaraxani ayaa waxa uu ka dhacay wadada maka almukarama gaar ahaan meel ku dhow isgoyska shaqaalaha iyo shaneemadii hore ee Soomaaliya waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in uu ahaa qarax mid ka dhashay gaadiid waxyaalaha qarxa lagu soo raray wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkaasi lala beegsada baar ay dadka ku cunteynayeen kaasi oo caan ka ahaa magaalada muqdisho gaadiidka gurmadka degdega ee ambulance ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacayo waxaana la soo sheegayaa in uu jiro khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac wixii faahfaahin ah kala soco goordhow suldaanka TV